kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamij cusub oo aanu ugu magac darnay qubanaha maanta oo toddobaadkiiba 4 jeer aanu idiin soo tabin doono. barnaamijka waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dunida iyo Soomaaliyaba. waxa kale oo aad ku daawan doontaan wararkii ciyaaraha, tiknoolajiyadda iyo waliba sheekooyin kale oo xiiso leh. qaybta maantana waxaad ku daawan doontaan tahriibayaal Soomaali ah oo ku xanibnaa dalka Liibiya oo maanta Soomaaliya lagu celiyay. dawladda Mareykanka oo si adag uga hortimid go'aanka ay Itoobiya xaaladda degdegga ugu soo rogtay dalkeeda. iyo waliba 13 qof oo Ruush ah oo lagu eedeeyay inay faragelin ku sameeyeen doorashadii Mareykanka ka dhacday. aanu ku bilownay maanta waxaa magaalada Muqdisho dib loogu celiyay 10 tahriibe oo Soomaali ah oo muddo ku xanibnaa dalka Liibiya. wafdi ka socda dawladda Soomaaliya oo muddaba ku sugnaa dalkaasi ayaa iyagu gacan ka geystay sidii dadkan dalkooda dib loogu soo celin lahaa. wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray. maxaabiis Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 10 qof kuwaas oo ragga loo yaqaano magafayaashu ay ku haysteen xarumo qarsoodi ah oo ku yaala dalka Liibiya ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. maxaabiistan oo ay wajiyadoodu ka muuqatay diif iyo dandarro culus ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda oo uu horkacayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. maxaabiistan ayaa waxa garoonka Muqdisho keentay diyaarad ay leedahay Turkish Airways waxaana halkaasi saxaafadda kula hadlay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ka warbixiyay dadaalka loo galay soo deynta maxaabiistan. waxaynu maanta ku guuleysanay in 10 xubnood oo kamid ah oo qoys iyo isugu jira ashxaas kale laga soo kaxeeyo laga soo furto alxamdulillah rabbil caalamiin si nabadgelyo ahna ay u yimaadaan dhulkoodii hooyo ku soo noqdaan. sidoo kale Maryan Yaasiin oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo carruurta oo maxaabiistan la socotay ayaa sheegtay in dhibanayaasha Soomaalida ee laga keenay Liibiya ay ku jiraan dad koonfurta Liibiya lagu haystay muddo 3 sano ah oo maanta fursad u helay inay ku soo laabtaan dalkoodii hooyo. dadkan maanta aan keenay waxay ku sugnaayeen magaalada Tripoli waxayna ahaayeen dadkii magafaha gacanta ugu jiray. waxa maanta inala socdo dad guryo oo magafayaal maamulaan oo magaalada Kufra oo koonfurta Liibiya ilaa 3 sano lagu soo haystay. Cabdikariin Maxamed Omar ayaa dhinaca kale warbaahinta la wadaagay magaalooyinka dalka Liibiya ay Soomaalidu ku dhiban yihiin waxaana uu xaqiijinayaa geerida qaar kamid ah dhalinyaradii ay tahriibka wada galeen. marka New Liibiya way iska dhib badan tahay horta magaalooyin badan ayaa dhalinyarada lagu haystaa iyo dhalinyaro saaxiibada iyo hadda Ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha. sida aniga wiil bustahil ugu jiro kale Allah oo naxariistay uu dhintay wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafa uu garaacay sankiyo afku dhiga keenay. gabadh kale bishaara la yiraahdo regalka ayaa ay dhimatay waxay u dhimatay jugta ay ugu geysanayeen ninka magafa. Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho. Somaliland maanta waxaa xabsiga la dhigay agaasimihii TV-ga Universal ee Somaliland Maxamed Caabi. howlwadeennada TV-ga ayaa idaacadda VOA u sheegay in ciidanka boolisku ay xireen Maxamed Caabi. dhanka kalena weli waxaa xiran oo xabsiga ku jira 2 qof oo la sheegay in fikirkooda ay cabireen. hase yeeshee xukuumadda Somaliland ay ku sheegtay dad waday falal liddi ku ah Somaliland baarisna ay ku hayaan. xarunta xuquuqul insaanka Somaliland ayaa ku baaqaysa in la sii daayo suxufi Maxamed Caabi Digaale iyo waliba dhammaan dadka xorriyadooda arrimo la xiriira loo xiray isla markaana la ixtiraamo xaqa ay dadku u leeyihiin in ay hadlaan. Itoobiyana waxaa lagu soo rogay xaalad degdeg ah kadib markii ra'iisul wasaarihii dalkaasi Haile Mariam Desalegn uu xilkii ra'iisul wasaarenimo iska casilay. golaha wasiirada ayaa go'aan wadajira ku gaaray in dalka xaalad degdeg la geliyo muddo 6 bilood ah. wasiirka gaashaandhigga Siraaj Fagesa ayaa sheegay in meelo ka tirsan Itoobiya ay dibadbaxyo ka socdaan. ra'iisul wasaaraha ayaa iscasilaadiisa ku micneeyay mid uu ku doonayay in wax looga qabto rabshadaha iyo cabashooyinka ka dhacaya gobollo ka tirsan dalkaasi. dawladda ayaa sii daysay in ka badan 6,000 oo maxaabiis ah kuwaas oo horey loogu eedeeyay rabshadaha. dhinaca kalena dawladda Mareykanka ayaa si adag uga hortimid go'aanka xaaladda degdegta loogu soo rogay dalka Itoobiya. war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi ay weeqayso dadaalkii loogu jiray isu keenidda dhinacyada kala duwan ee siyaasadda dalkaasi taasoo ay ka mid tahay sii deynta maxaabiista dhinaca siyaasadda.
Robert Mueller oo isagu madax u ah kooxda baaraysa faragelin la sheegay in dalka Ruushku uu ku lahaa doorashadii Mareykanka ka dhacday 2016 ayaa 13 qof oo Raashiyaan iyo waliba 3 hay'adood ku eedeeyay in ay arrintaasi ku lug lahaayeen. Mueller ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dhammaan dadkani ay marin habaabin sameynayeen si ay u khiyaanaan Mareykanka. Kooxdana uu hogaaminayo Yevgeny Prigozhin oo isagu aad ugu dhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu suurowday in ay saameeyaan tiro badan oo Ameerikaana. 2016 waxa ay taageereen ololihii Donald Trump iyagoo dhinaca kalena sumcadda ka dilay Hillary Clinton. wakaaladda boostada Jabuuti ayaa ka caawisay boostada Soomaaliya in ay howlaheedii dib u bilowdo. dadka adeegsanaya boostada Soomaaliya ayaa waxa ay sii dhex marayaan boostada dalka Jabuuti. arrintanina waxa ay daba socotaa heshiis labada dowladood ay dhowaantan dalkaasi ku wada saxiixdeen. warkan waxaa Jabuuti ka soo dirtay Sagal Siciid. alaabadan kala duwan ee loo diray magaalada Muqdisho waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee lagu soo diray boostada Soomaaliya muddo 27 sano kadib. waxa ayna iskugu jireen alaabooyinkaasi daawooyin, dukumiintiyo iyo qalab kale kuwaas oo gaarayay ilaa 100 kiilo. waxa laga soo kala diray wadamada Lubnaan iyo Holland. physically waa alaabtii horeysay ee boos soo dhaxmartay ee gaadhay Muqdisho muddo 27 sanadood. taawin dadku arkaan marka shacabkii Soomaalida ay wax direysay ee marka hore wax uu qaali ku haamo qof doofay wax u diibi jireen wixii ba ka dhamaanaysa imika booste doonaan bay tagayaan duwada doonaan qofkee doonaan bay ku qorayaan adreeska waxay siinayaan adreesku qofku xaq u galiyay Muqdisho noqotay Afgooya noqotay Baydhabo noqoto Hargeysa noqoto Puntland noqoto Boosaaso noqoto meesha doonaan. dhinaca kale waxa ugu baaqay dhalinyarada Soomaalida ee doonaya inay dadkooda caawiyaan hadday noqdaan kuwa ku nool dalka Jabuuti ee ku jira xeryaha qaxoontiga iyo dhinaca Soomaaliyaba inay ka faa'iideystaan dib u howlgalka boostaha Soomaaliya. wax soo gaaraan kaamka badan ee Jabuuti ama Soomaaliya jira marka hore fursada meel mariyaan wax garan lahaa dimaata u furan tahay inay boosta soo raaciyaan boosta meesha doonaan ba joogan wixii dhar soo dhigay kii dawooyin soo diray kii lacag soo diray doonay ma gaareen waxaasna boos soo dhaxmari karaya. bartamihii 2006 ayay ahayd markay kala saxiixdeen labada wasaaradood heshiiska ah in alaabaha loo diriyo boostada Soomaaliya ay soo dhexmarto boostada Jabuuti iyadoo boostaha Jabuutina uu ka dhex furan yahay xafiis ku meel gaar oo ay leedahay boostada Soomaaliya. waxaana sidoo kale barbar socday heshiiskaasi tababaro kala duwan oo la siiyay shaqaalaha boostaha Soomaaliya. Sagal Siciid Faarax, VOA, Jabuuti. ugu dambeyntiina dukaanka Macy's oo ka mid ah dukaamada dharka ugu waaweyn dalkan Mareykanka ayaa noqday kii ugu horeeyay oo iibiye xijaabka iyo waliba dharka dumarka muslimka ahi ay ku labistaan. dukaanka Macy's ayaa bilaabay qayb u gaara labiska dumarka muslimiinta waxaana qiimo ahaan dharkaasi uu u dhaxeeya $13 ilaa $85. fikradda waxa ay ka timid Lisa Vogel oo ah sawir qaade muslim noqotay sanadkii 2011. Vogel ayaa sheegtay in ay ku adkaatay in ay dhar dumarka islaamka ah ka hesho dukaamada caadiga ah. taasina waxa ay ku dhalisay in ay fikirkan la timaado. tirada muslimiinta oo sii kordhaysa iyo dukaamo badan waxa ay bilaabeen in ay ganacsi ahaan korarkaasi ka faa'iideystaan. sanadkii 2016 $254 bilyan oo dollar ayaa la xaqiijiyay in lagu iibsaday dharka muslimiintu ay xirtaan dunida oo dhan. waa hagaag intaasna waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeedii qubanaha maanta oo isagu ah barnaamij cusub oo toddobaadkiiba 4 jeer aanu idiin soo tabin doono. barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo dunidaba, warar la xiriira isboortiga, tiknoolajiyadda iyo waliba sheekooyinka ugu xiisaha badan leh baraha bulshadu ay ku xiriirdo. sidoo kale waxaa qayb ka ah xubin aanu ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aanu ugu talagalnay in dadkana daawanaya ay aragtidooda ku cabiraan. intaynu dib u kulmayno berrito bahda VOA isku duuban waxay idin leeyihiin nabadgelyo.